السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا ولا قاليga meel walba adduunka ka joogtiin ku soo dhawaada channelka Tawakkal Family. Haday tahay markii kuugu horeysay subscribe noo saar. Hadii nala joogi jirtayna qaybta like naga soo dhis insha Allah. Walaalaha qaaliga hore nala joogo waxaan ilaahay bash iyo barwaaqo meel walba adduunka kaga joogtiin igu noolaada. Alxamdulillah anaga waa caafimaad qabnaa. مركلا iyo video cusub insha Allah intii xanuunsanna Allah caafiyo intii caafimaad qabtana Allah u ziyaadiyo aamin ya rabbi anagana hanaga reebin maanta walaashiin waxay wadaa sheeko cusub insha Allah gabar baay la soo wadaagtay ani runtii waxaan jeclaa sheekooyinka hadii la ila soo wadaago inaan markiiba aan soo tuuro adaan jaanis u helo adaan jaanis u heli waayeen waxaan jeclaa waqtigan jaanis u helo inaan soo gudbiyo saddex beri oo malayna I think inaan ka maqnaa YouTube-ka karaal naqdo codkayga hadii oo uu gaaban yahay maanta microphone ma wati marka waan qaylinahayaa haduu Ilaahay raali ka noqdo soo dhawaada walaalay qaaliga meel walba adduunka ka joogtiin mar kale isku soo laabasho wacan oo wanaagsan runtii kumantiyaashin quruxda badan dhiirigelintiina waa arkay jazaakallahu khayr haddana meesha iyo meel ka sii fogba idinkaana gaarsiin karo idinkaana iga fadhiyaa إن شاء الله جنالكو عصوب يهي هلا يسود دويو يوتيوبر عصوبة أهي إن شاء الله ميرفي عن إنان كجارنا رجينا يا دلاليه الصوماليات إذا كا عن قبان كرو مركو حانكو لهاي هورها لإيسو يا هورها لإيوه إن شاء الله ما أنتو حانو وضع قصة قبر باي إلى سو بداكتي ولي قبر صاحبة عن هاي اسكودونا هاي قصة حتى أنا وح عنكو هاي سيدا تان أيكو بلاوتا gabadha saaxiibteeda wiil ayay isbarteen gabadha waxay joogtaa Kenya wiilkan wuxuu joogaa Europe Facebook la isku bartay markii la isbartay in muddo waa la sheekeysanayay muddo adiga 6 bilood oo kale wiilkana gabadha ma ogo inuu xaas leeyahay caruur leeyahay nin soo baxo shaqo soo tagay oo caruurtiis iyo xaaskiis u maqan asaga saas waaye laakiin gabadha kama warheyso anigana gabadha markii hore ilama wadaagin sheekada markii kadib ayay waxay ugu tiri abaayo Shamso miyaha wiil ayaa isnaqaana oo meesha adiga joogtid uu joogo marka waxaan rabaa qofkaas inaan lambarkiisa ku soo tuuro aad ii ogaatid xaaladiisa markaas waxaan ku dhahay wiilka muddo dhow ma asbarateen markaas waxay ugu tiri muddo adiga xawaali 6 bilood isnaqaana hadda wiil fiican waaye guuraan ku heshiinay hooyaday waan baray walaalahayga waan baray waxaan rabaa in gabar saaxiibanahay aan meesha isku la joogtaan dhahay marka isku meel aad joogtiin qofkaas aan rabaa inaa ii soo ogaatid karaal naqda maanta tarxada iga dhadhacoosan fahanteen marka bas waayahay aan dhahay ii soo gudbi lambarkiisa gabadhana gabar saaxiibo oo aad isku dhownaha ahaan marka gabadhii lambarkay ii soo gudbisay wiilkii markaan wacay aniga runtii kor ahaan ka aqaana laakiin face to face wiilgay isma hor fariisan mana sheekaysan laakiin qof oo markaan wadada iskaga hor imaano salaam calaykum salaam ayaa isdhihi jirnay laakiin xaajigeygii asaga isku fiicnaa is yaqaaneen bas gabadhii lambarkay ii soo turtay aniga marka uma maleeyay naftirkeyga Shamso ahaan qofkii lambarkii aan ku save gareystay salaam calaykum u qoray وعليكم السلام وداي أسجنا لمبركي والله توري أسجنا مر والبحودي في جرجبر ولا شيء بر عن برتو عن أركو يشاق أذجع ما علينا أتجايا قف حسكري قد داعت بس قفكي وان واضح هذلني تلفون عن قوة هذلني تلفون مركان قوة هذلني وحنجي على استمرك إن عزومة أو جرو كانوا وقبلنا إني صاحبتي تهي ولا شيء وكلا تهي قبلنا مرك صاحبة أنا هاي أيضا أول شيء كيس قبر ولا شيء ماشي دكان أوكي أنا قال مرك وحنا قبل أسوق قبر ولا شيء وقبر صاحبنا هاي وجو ويل كمرك ودس أبكي أسوق براني أيضا أول شيء وحنا ويل في عن ويسود به ما شاء الله مرك جانس أقول هذين يا جورجان كين يا وعزوم يا هي يقول تري ذن صبر كيس يصدرت مرك صبرك هذا يصدرت وخفكي laba week ama week kadib wadada iskaga hor imaano istislaan wiilku waa wiil gobolka nala degan markaas xaajigeyga tuswaxana qofkii oo gobolkeena deganaa Soomaa markaas uu dhahay ha
أنا مرك وانا حي إن أرت ودمدان قربها يعني قف كذا تقانين أو حتى أو أقون أولهن وحو يهي وحو قلا يكر أيا لقاعد الشيء waayo Soomaalida ku yar gobolada oo aan deganahay marka qofkaas waxa la iiga sheekay inuu xaas leeyahay caruur u joogto sanad kasta wadankii aado oo xaaskiisa soo booqdo bil ama 2 bilood soo maqnaano soo laabto fiiriya ani markii safarkii markii aan arkay waan qaracmay xaajiga tusay wuxuu dhahay qofkan waa aqaanaa qof gobolka nala joogo waa hebel hebel waa ma taqaanid miyaa safarkii ku soo diro ugu dhahay markaas ka qari waxaan dhahay ما عادي فيسبوك لان ku arkay ama bas ana marka gabadha wax ma kala qarsin jirin gabadha waa u sheegay waxaan dhahay walaalay ninkan xaas uu leeyahay caruurun haystaa saas ma ku ogtahay markaas ay gabadha qaracmad waxay tiri maaya kuma ogi ninkan xaas ma lahan caruurna ma lahan walaalay macana sheekadaas ay iga sheekeen wallahi waxaan dhahay caruur xaas uu leeyahay ana walaashiya tahay marna saaxiibadeeda tahay gabar Soomaaliyeed oo la qiyaanayo xataa ma fiirsan kariya dhahay laakiin adoo had maanta saaxiibo aan nahay warkeeda iska daa markaas ay gabadhi way yaabtay wallahi ana gabdhinkan xaas uu leeyahay caruur haysta sasada ku jeceshahay oo ku galaysid aday ku taalayaan laakiin ninkan nin caruur xaas leh waa ku qiyaanayaan dhahay anigana marka qiyaanada ma jeceli gabartii waxay tiri okay bas wiilkii marka ana wacay waxaan dhahay no imaw waa ku casuumayaa markaas wuxuu dhahay intee degan tihiin gobolkan deganahay u sheegay eeridiyo marka fahmay oo gobolkaas ma degan tihiin ha hebel hebel ma taqaana ha waa aqaana adigna ma taqaana ha hebel hebel waa isla deganahay uu dhahay hebel hebel waa adeerkeege waxa la dhahaa isaga hebel ma isla degan tihiin ha adiga kee waa hebel waa uu dhahay okay adiga hebel ma tahay anigna ma taqaana maya anaga waxaan dhahay saaxiibka xaaskiisa ana isku jeedo moogtahay zam uu igu jarano taleefankii taleefanka haduu igu jaray marka la yaabay ku noqotay ana gabadhii wixii xaaladii oo asagu ku sugnaa ayaan u sheegay markii dambe gabadhii way qalbi jabtay way iska daysay asagiina dib ayuu gabadhii ii sheeg adiga u raadiyay wuxuu dhahay ani ilaahay afar uu ii binay walaalahay hadaan ka qariyay hadda sidaas ayaan rabaa inaad igu guursatid aan kuugu imaado meesha joogtid aan isku guursano oo maxad ka leedahay marka waxay tir gabadhi maadaama adiga YouTube uu ku furan yahay asxaabtaad ii weydii maadaama ninkii aan noloshiisa aan ku beerin wali oo aan soo galin oo hadda saas ii qiyaanay ma laga yaabo bari kamaana inuu mar kale qiyaano ee qofkaas ma ku yaacaa ama waa iska diyaa marka tala ii weydii gabdhahaas oo walaalahayga ah oo YouTube-kaaga ku xiran marka idinka waxaan iga rabaa talo inaa gabadhaas u soo jeedisiin waxay sameyn lahayd ani ahaantay shamsi ahaantay waxaan dhahay iska dhaaf waayo arada ilaahay waan sac waaye qof oo maanta shalay runta kuu sheegan berin inuu ku sii qiyaana laga yaabo iska deeyaan dhahay marka gabdhaha walaalahayga u bandhig qisadaasaydi falcelintooda ayaan fiirinayaa anigana falcelintii ayaan ku dhaqaaqay ee ugu tiri marka talada waa xaqiina gabadhaas la soo taliya fikirkiina iyo fikradiina ka soo dhiibta waxaan iiga tagayaa khayr badan sheekada meeshaas ay ku eg tahay fikirkiina iyo commentiga la soconaya insha Allah commenti qurux badan u soo qora channelkan hore noo soo gudbiya sheekada haysidna qaybta commentiga noogu soo qor insha Allah si aan kula soo xiriiro waxaan iiga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo bye bye